Assalaamu calaykum walaalayaal kusoo dhawaada qayb cusub oo Flutter tutorial ah marka qaybtan xoogga waxaan saaraynaa navigation saan maaragtay screen ama another screen saan u aadi lahayn marka waxaan isla dhisaynaa simple app marka appkan waxa weeye maaragtay waxaan haysanaa player namekiisa iyo maaragtay magaciisa intuusan u jiro iyo teamka u ciyaaro marka listigana waa listi badan weeye marka kan ayaan isla dhisaynaa hodhowtii markaad ku dhufatidna playerka wuxuu kusoo saarayaa magaciisa positionka uu ka ciyaaro wadankiisa salaryga intuu sanadkii sameeyo iyo teamku hadda u ciyaaro iyo sawirkiisa marka tutorialkan waxaan xoogga saaraynaa maaragtay navigation saan maaragtay different screens ama maaragtay screen kala duwan saan u aadi lahayn iyo maaragtay saan information maaragtay ugu baasi lahayn screen kale saan hodhowtii informationkan u isticmaali lahayn aan wax badan usii sameyno for example screenka markaan aadno informationka waxaan isticmaalaynaa player number magaciisa positionka uu ka ciyaaro iyo maaragtay intaas uu jiro iyo wixii lamid ah marka saan ayaan bilaabaynaa okay marka waan bilaabaynaa hadda waxaan sameeyey new directory ayaan sameeyey marka pwd marka new directory ayaan sameeyey oo maaragtay documentiga ayaan waxaan sameeyey folder la dhaho maaragtay Flutter tutorial ayaan sameeyey marka folderkaas gudihiisa maaragtay ayaan maaragtay waxaan new project ayaan sameynaynaa marka waxaan dhahaynaa Flutter create player info app marka 5 second xoogaa kabacdi markuu iswaxeeyo kabacdi waxaan dhahaynaa code marka Visual Studio ayaan furaynaa okay marka Visual Studio markuu noo furmay player info ayaan aadaynaa hodhowtii main.dot ayuu noo waxeysmayaa kabacdi run ayaan dhahaynaa applicationka waxaan isticmaalayaa iOS simulator marka run without debugging kabacdi intuu run dhahayana some cleanup ayaan sameynayaa okay marka cleanup ayaan sameeyey marka haddii aan maaragtay hot restart haddaan dhahno marka hadda waxaan haysanaa bes waxa weeye maaragtay maaragtay screen oo home page ah oo container leh containerkana wuxuu noo sheegayaa maaragtay inuu maaragtay home page leeyahay laakiin si fiican waxaan ilownay maaragtay scaffold marka waxaan sameynaynaa waxaan dhahaynaa wrap with the widget kabacdi waxaan dhahaynaa scaffold kabacdi body ayaan ka dhigaynaa kan okay now hot restart ayaan dhahaynaa hadda okay weeye okay marka waxaan rabnaa kan delete ayaan dhahaynaa also kan haddaan rabin in maaragtay debug mode haddaan rabin waxaan dhahaysaa show debug mode banner waxaan dhahaysaa false save markaa dhahdid okay marka widgetkanna center ayaan ka dhiganaa saan u aragno where is center widget okay alright so waxaan rabnaa hadda inaan isla dhisno haddii aan furno sawir ayaan ka qaaday marka hadda waxaan dhisaynaa maaragtay kan waxa weeye card list weeye oo card ayuu leeyahay cardkaas gudihiisa marka waxaan isla dhisaynaa maaragtay marka cardkan wuxuu leeyahay maaragtay picture sawir oo playerka magaciisa iyo agekiisa iyo teamka u ciyaaro kaas ayaan isla sameynaynaa marka hore waxaan sameynaynaa appbar ayaan sameynaynaa appbar hodhowtii appbar haddaa xasuusatid wuxuu qaataa title right title ayaa qaataa titlena waxa weeye widget ayuu qaataa marka waxaan dhahaynaa textigana maxaa dhahnay waxaa dhahnay player info okay marka player info app haddaan dhahno safe marka waan arkaynaa okay marka hadda waxaan rabnaa inaan dhisno marka hore waxaan u baahannahay waayo haddaad aragtid maaragtay waa kuwan dhan waa wada player
marka waxaan u baahanaa inaan object sameyno marka waxaan dhahaynaa new folder waxaan dhahaynaa player model right marka folderka markaa sameyno folderka gudihiisa waxaan qoraynaa player dot marka player.dart waa class weeye marka classkan waxaan sameynaynaa player ayaan qoraynaa marka playerka wuxuu leeyahay id name inta magac ayuu leeyahay inta san uu jiro salarygiisa positionka teamku hadda u ciyaaro iyo current team logo player image sawirka playerkiisa iyo player description iyo country flag iyo maaragtay country name marka haddana waxaan isticmaalaynaa constructor or hodoti markaan sameynayno initialize ayaan ku wada dhahaynaa kuwaan dhan hodoti haddana waxaan sii sameynaynaa player maaragtay list waxaan create dhahaynaa another folder ayaan sameynaynaa folderkan waxaan dhahaynaa data source marka gudihiisa waxaan dhahaynaa player data waxaan ilownay dart ayaan ilownay marka playerka gudihiisa copy ayaan waxaan dhahaynaa this data marka import ayaan sameynaynaa player app kabacdi playerka ayuu noo soo saaraya laakiin waxaan u baahannahay intaan bes ayaan u baahannahay dot hodoti waxaan maaragtay waa best practice way kan marka hodoti modelka iyo player data marka waxaan haysanaa marka playerka koowaad waxa waye idgiisa one weeye magaciisa waa maxamed saalax agekiisa waa 28 current team logana waxaan sawir ayaan kasoo qaaday internetka ayaan kasoo qaaday kabacdi country namekiisa waxa weeye Egypt teamku u ciyaaro hadda waxa weeye Liverpool iyo Liverpool sawirkoodana intaan kasoo qaaday iyo country kan waxa weeye countryga weeye oo Egypt sawir ayaan internetka kasoo qaaday player imagekiisana internetka ayaan kasoo qaaday salarygiisana intaas ayaan internetka ayaan ka fiireysnaa iyo descriptionka playerka wuxuu yahay iyo positionku ka ciyaaro marka hadda waxaan haysanaa 4 player ayaan haysanaa sidoo kalena kan saan ayaan dhahnay waxaan dhahnay player 2 waa Ronaldo intaasanu jiraa so on so forth marka waa maaragta list waxaan haysanaa list of players ayaan haysanaa okay marka waxaan aadaynaa hadda waxaan aadaynaa main.dart homepage ayuu leeyahay marka waxaan copy ayaan sameynaynaa kan kabacdi another folder ayaan sameynaynaa waxaan dhahaynaa screens ayaan dhahaynaa gudihiisa waxaan qoraynaa player list screen ama screen I keep forgetting IntelliJ ayaan isticmaalaa laakiin first time aan isticmaalayo waxa weeye Visual Studio marka badanaa waxaan isticmaalaa IntelliJ for Flutter marka hadda ha iloowin maaragta inaad soo import garayso material.dart marka haddaan hot restart haddaan dhahno wax kasta waa inuu noo shaqeeyaa sidii hore weeye error ayaan helaynaa of course error waxa weeye import waa inaan dhahnaa player.list waa inaan import dhahnaa marka hadda hot restart markaa dhahno okay marka hadda wax kasta u baahannahay waan sameynay I hope wax error miyaan haysta inta okay now hadda wax error nama haysto okay waa wax kasta waan sameynay marka hadda data source ayaan sameysanay waxaan also sameynay player model hadaa xasuusatay waa class weeye aan maaragta aan ku sameynayno player informationkiisa kabacdi waxaan sameynay screenka koowaad waxa weeye my homepage right my homepage weeye oo my homepagekana waxa weeye player list weeye oo kan weeye homepageka
kabacdi main.dortna wuxuu ka imaanayaa first screen-na waa home page. Okay, marka waxaan sameynaynaa body-ga wuxuu noqonayaa list view weye. Marka list view wuxuuna siinayaa maaragtay object oo maaragtay widget weeye. widgetkana maaragtay waxaad maaragtay u isticmaalaynaa list of widgets. hodhowtii scroll ayuu leeyahay oo hodhowtii hoos ama kor ayaan u wadaynaa. marka kan ayaan isticmaalaynaa. list view wuxuu qaataa childrenkaas of course waxaan ka dhigaynaa maaragtay si badan ayaa jiro. waxaa isticmaali kartaa maaragtay players right map ayaan isticmaalaynaa. hodhowtii widget ayaan create gareynaynaa. widgetkaas waxaan dhahaynaa player info ayaan waxaynaynaa. hodhowtii waxaan ugu baasanaa player. hodhowtii playerka ayuu qaadanaya. saan waa sameyn kartaa okay weye, nothing wrong. laakiin waxaan isticmaalaynaa another way aan isticmaalaynaa. marka waxaa dhahaysaa players.map map ayaan isticmaalaynaa. hodhowtii at the end to list ayaan dhahaynaa. hodhowtii wuxuu noqonayaa list of widgets. kabacdi player ayaan ka dhigaynaa. wuxuu qaadanaya waayo mapkan haddaa xasuusatid waxa weeye list of players waaye. haddaan aadno players haddaan aadno playerka wuxuu for each object wuxuu haystaa playerkana information ayuu siilaya. marka saas ayaan u isticmaalaynaa. marka waxaan class ayaan sameynaynaa. classkaasna waxa weeye player widget aan dhahe widget player info. kabacdi waxaan u baasaynaa player. kabacdi playerkana wuxuu noqonayaa player. okay, waxaan sameynaynaa new folder ayaan sameynaynaa. folderkaas waxaan ka dhignaa widgets. kabacdi widgetkan gudihiisa waxaan qoraynaa player info widget for example. again waan ilaawe inaad ku daro dot waa intelligent markaa isticmaalaysa automatically asaa kugu daraya. laakiin visual studio inaad isticmaashid way inaad dhahday dot. marka waxaan dhisaynaa stateless widgetkan waxaan ugu wacaynaa player info ayaan ugu wacaynaa. player infoga make sure maaragtay haylaawin inaad import dhahdid flutter material.dort. markaan create sameyno key ayuuna siinayaa. hadda keygan don't worry hadda mar kale ayaan ka hadlaynaa. muhiimadda maaha cashirkan. marka wuxuu qaadanayaa classkan wuxuu qaadanayaa one property ama wuxuu haystaa one property ayuu haystaa. propertygaasna waxa weeye final player object ayuu leeyahay. hodhowtii waa inaan import dhahnaa player. hodhowtii marka flutter saa u rabnay import muunusan noosoo sameyn. marka waa inaan dhahnaa maaragtay dot waa inaan dhahnaa. hodhowtii dotkaas micnaheeda waxa weeye maaragtay waa inta level ayuu ku jiro modelkan. for example modelkan wuxuu ku jiraa haddaad aragtid waxa weeye modelka wuxuu ku jiraa data source. kabacdi data source gudihiisa ayuu wuxuu ku jiraa player.dort. marka waxaan dhahaynaa player.dortka kasoo saar inta. kabacdi intana kasoo saar model. marka waa inta level uu ku dhex jiro. haddii oo maaragtay model kale aan sii lahaynaa inta oo folder kale aan sii sameyno hodhowtii 3 dot ayaa isticmaal. marka dotkan waxa waa inta level uu ku dhex jiro. hodhowtii programka clean ayuu noqonayaa. marka saas ayay dadka badanaan dhaheen best practice weeye. markastaa import dhahaysid haddaad wax folder waxaas waa 2 dot inaad isticmaasho ama inta level ku dhex jiro weye. 2 dot kaliya maaha. marka okay, playerkan waan u baasaynaa markasta aan sameyno. marka waxaan dhahaynaa this dot player. laakiin hadda kan waa optional weeye oo hodhowtii haddaana player u baasin error nama siinayo. waayo waxaan dhahaynaa playerkan optional weeye. haddaan player aanan u baasin oo null yahay
objectiga hadduu null yahay hodhooti error ayaan helaynaa waayo hodhooti wax nulla ma isticmaalayno marka haddaad isticmaalayso option parameter aanan rabin maaragtay objectigan inaysan null noqon waa inaad raacsiisaa add required waa inaad raacsiisaa hodhooti maaragtay add required markaad raacsiisid waa wuxuu noqonayaa maaragtay muhiim ayuu ka dhigayaa oo hodhooti kan haddaana wax u baasin oo maaragtay null yahay hodhooti programkiina ma shaqeynayo run ma dhahayo marka haddaad option primary isticmaalashid oo aad rabtid objectigan inaysan null noqon oo markasta aan isticmaalaysa ama dhisaysid inaad wax ugu baastay inay qasab kuu noqoto waa inaad isticmaashaa required okay marka hadda waxaan dhahaynaa just empty text ayaan iskaga waxaynaynaa hadda marka for now taxiga waxaan dhahaynaa test okay waxaan ku laabanaynaa player.list haddaad xasuusatid player.list waxaan dhahnay wuxuu qaataa waxa weeye waxaan dhahnay list view list view children ayuu leeyahay marka waana listig weeye marka listigan waa playerkan ayaan waxaan isticmaalaynaa map marka each objectiga aan maaragta iterate dhahayno index 0 1 2 3 each object mapkan wuxuuna siinayaa player object oo aan objectiga u baahanahay oo maaragtay each iteration ama indexiga aan marayno ayuu maaragtay ayaan helaynaa playerkan ayaan waxaan ugu baasaynaa this object aan samaynayna hodhooti haddana import ayaan dhahaynaa kabacdi sidoo kale saan ma rabno dot ayaan isticmaalaynaa okay so hadda wax kasta okay weeye haddaan run dhahno let's see hadduu shaqeeyo haddii kale hadda waatana waxaan haysanaa for list ayaan haysanaa marka listigaas ayuu test afar jeer soo qorayaa waayo maaragta lengthiga aan isticmaalayno waxa weeye 4 element ayaa ku jira meesha waa 1 2 2 3 iyo 4 okay I hope that's working and waad fahantaa umaleynaa marka maxaan rabnaa inaan sameyno waxaan rabnaa inaan dhisno applicationkan marka each player kasta aan sameyno oo object ah wuxuu haystaa sawir name iyo age iyo maaragtay iyo teamka u ciyaaro marka waxaan dhahaynaa return ayaan dhahaynaa marka return card ayaan dhahaynaa hadda marka haddaa aragtid sawirkan haddaa aragtid card waaye oo maaragtay shadow ayuu leeyahay marka widgetkan waa card widgetkan waxaan siinaynaa childkana wuxuu qaataa waa widget ayuu qaataa marka waxaan rabnaa inaan maaragtay haysano icon oo maaragtay icon image inaan haysano kabacdi text oo hodhotii taxigana waxa weeye maxamed saalax iyo age iyo maaragtay intaasnu jiro iyo taxi oo liverpool teamka u ciyaaro marka waxaan isticmaali karnaa list tile wax la dhaho waa widget weeye list tile marka list tilekana wuxuu leeyahay wuxuu ku siinayaa leading widget ayuu ku siinayaa oo widgetka ugu horeeya weeye kabacdi title ayuu ku siinayaa kabacdi subtitle ayuu ku siinayaa kabacdi another widget wuxuu ku siinayaa trailing waa widgetka ugu dambeeya marka haddaan aragno kan anadka maaragtay leading widgetkeena waxa weeye sawirkan titlekeena waxa weeyena magaca subtitlekana waxa weeye age trailingkana waa waxa weeye liverpool current tax marka waxaan dhahaynaa leading widget ayuu qaataa marka waxaan u baahanahay sawir maaragtay circle ah oo saan camal ayaan u baahanahay marka waxaan isticmaalaynaa circle avatar waa another widget weeye widgetkana wuxuu ka dhigayaa sawirka maaragtay circle ayuu ka dhigayaa marka waxaan dhahaynaa background image ayuu qaataa background imagekana waxaan ka dhigaynaa maaragtay network image waayo sawir kastaan u baasno internetka ayaan kasoo qaadanaynaa marka waxaan dhahaynaa player image ayuu noqonayaa right okay
haddaan save dhahno hata waxaan helaynaa player kasta sawirkiisa ayaan helaynaa waates player kasta sawirkiisa ayaan helaynaa hodhowti sawirkan hata si aad ayuu yar yahay wuu yaro yar yahay marka waa yaro weyneynaynaa waxaan ka dhigaynaa radius waxaan ka dhigaynaa 30 ayaan siinaynaa save ayaan dhahaynaa hata sawirka uu soo yara maaragtay weynaaday okay marka leadingka kabacdi waxaan isticmaalaynaa titlekana haddaa xasuusatay text ayuu qaadanayaa oo waayo waxaan u baahanaa playerka magaciisa marka waxaan dhahaynaa player dot name for example save haddaa dhahno waxaan hot restart inaan dhahno way marka okay marka player text do we have any error error ayaan haysanaa haddii aan hot restart haddaan dhahno hadda waxaan haysanaa player magaciisa player kasta magaciisa ayaan haysanaa okay maxaa kaloo nooga sii dhiman subtitle ayaan isticmaalaynaa hadda subtitlekana waxaan ka dhigaynaa another text weeye textigana wuxuu noqonayaa player dot age haddaad aragtid age haddaad aragtid dot age haddaadan age waxa weeye integer weeye laakiin taxigana wuxuu qaataa string marka laba way two way ayaa jirta aad saan samayn kartid ta koowaad waxa weeye waxaad isticmaali kartaa string manipulation marka waxaad dhahaysaa player dot age horoti age gudihiisa ayaan waxaan ku bedelaynaa string manipulation hadda player kasta agegiisa ayaad helaysaa here okay sidoo kale waxaad samayn kartaa haddaad rabtid waxaad dhahaysaa player dot age dot to string saasna waa isticmaali kartaa haddaan save dhahno sidoo kale marka key two fudud ayaad isticmaali kartaa okay haddana waxaan isticmaalaynaa trailingkana waxa weeye textigana waxa weeye player dot current t save haddaa dhahno hurud waxaan helaynaa each player is team okay that's good laakiin haddaa aragtid maaragtay we don't know numberkan wuxuu yahay it could be anything wax kastuu noqon karaa marka waa inaan dhahnaa age 34 name the name hodhowtii saas ayaad fiican waayo hadda maaragtay numberka wuxuu yahay ma naqaano marka waxaan sameynaynaa row widget ayaan isticmaalaynaa haddaad xasuusatid widgetkan waa row oo isku wada xiga wey waxaan isticmaalaynaa row marka waxaa dhahaynaa row widget rowgana haddaa xasuusatid wuxuu qaataa children right okay childrenkaas waxaan ka dhigaynaa haddaan xasuusatid waxaan rabnaa maaragtay inuu noqdo name kabacdi magac marka waxaan dhahaynaa taxigaas waxaan ka dhigaynaa name kabacdi another text ayaan sameynaynaa kabacdi waxaan ka dhigaynaa player dot name haddaan save dhahno waxaan helaynaa nameka iyo maaragtay magaciisa hadda sidoo kale hadda magacaan maaragtay uu dheer yahay hodhowtii khalad ayaan ma noo shaqeynayo marka waxaan sameynaynaa markii hore coma ayaan dhahaynaa soo format u dhaho kabacdi waxaan sameynaynaa wrap with another widget waxaan isticmaalaynaa expanded widget marka expanded widget wuxuu sameynayaa all the available space uu qaadan karo ayuu qaadanayaa marka haddaan save dhahno hadda magaca maaragtay namekan wuxuu qaadanayaa spaceka available ah sidoo kale kana waxaa dhahaynaa expanded widget ayaan buuxaanaynaa for example waxaa dhahaynaa expanded widget savena haddaa dhahno isna sidoo kale maaragtay
spaceka wixii intii available space u ah ayuu qaadanayaa. Marka comma aan ku daraynaa kabacdi waxaan rabnaa magacan inaan maaragtay style inaan ku sameyno. Marka waxaan dhihi karnaa style intan waxaan dhahnaa text style kabacdi font sizeka waxaan ka dhigaynaa maybe 20. Okay, sidoo kale font sizekan caadi dhib ma leh, kan normal ayaan ka dhigaynaa maybe 18. kabacdi player stylekiisana waxaan ka dhigaynaa style text style kabacdi font sizeka waxaan ka dhigaynaa 20. xogaa wuu yaro weynaanayaa. kabacdi font weightkana waxaan ka dhigaynaa font weight bold si uu u weynaado. Actually oh what the hell waxaan sameynaa kan style ma siinin. Okay, marka saas waa sameynay. sawirkan maana sameynin maaragtay style waxaan taxiga uma sameyn laakiin waa sameyn karnaa dhib ma leh. marka saas waa sameynay. hadda waxaan rabnaa inaan sameyno age, sidoo kale inaan ka dhigno agena waxaan dhahnaa age kabacdi numberka inaan siino. marka sidoo kale haddaa rabtid copy ayaan dhihi karnaa kan copy ayaan dhahnaa. copy markaan dhahno sidoo kale not rowgan dhan ayaan copy dhahnaa. kabacdi wuxuu noqonayaa age ayuu noqonayaa. kabacdi agekaas wuxuu leeyahay age to screen ayaan dhahnaa to screen. kan okay weeye laakiin dhibka jira waxa weeye hadda maaragtay code duplication codeka waa ku celcelinaynaa. marka ma fiicna saan inaan sameyno. marka waxaan dhahaynaa refactor ayaan dhahaynaa programkeena saan maaragtay hal code u isticmaalno. saas highlight markaa dhahday kabacdi intan ayaan ku dhufanaysaa. kabacdi waxaa dhahaysaa extract widget ayaad ku dhufanaysaa. extract widget markaad ku dhufatid waxaa dhahaynaa label and value. kabacdi labelka markaa aadno widget ayaan sameynay. sidoo kale hadda key ma u baahnin marka iska remove garayn kartaa. okay, marka waxaan siin classkan wuxuu qaadanayaa waxa weeye string label iyo string value. final ayaan ka dhigaynaa final string value. kabacdi waxaa dhahaynaa required this dot value at required this dot label. okay, meesha nameka ku qoran yahay waxaan ka dhigaynaa label. meeshuu ku qoran yahay player dot namena waxaan ku qoraynaa value. okay, marka hadda waxaan sameynaynaa codekan ma baahnin delete ayaan iska dhahaynaa. kabacdi kanna delete ayaan iska dhahaynaa. waxaa dhahaynaa labelka waxa weeye name valueguna waxa weeye player dot name. sidoo kale subtitlekana sidoo kale ayaan sameynaynaa. waxaa dhahaynaa valuegu waxa weeye player dot age to string right. labelkana waxa weeye age. okay, marka hot restart ayaan dhahaynaa. okay, sidoo kale wax kastuu shaqeynayaa okay weeye.
marka 4 playerkaba waa haysanaa namekooda Neymar age 29 teamkuu shaqeeyo hadda waxaan rabnaa cardkan maaragtay inaan xoogaa maaragtay style ku sameyno cardkan wuxuu leeyahay maaragtay color ayuu leeyahay shadow color ayuu leeyahay elevation ayuu leeyahay show border shape marka elevation haddaan siino 4 xoogaa yirisoo shadow ayuu lahaanayaa xoogaa yirisoo shadow ayaan siinay elevationka marka 4 ayaan ka dhignay shapekanna waa maaragtay class weeye oo maaragtay shapeka haddaa rabtid circle inaad ka dhigtid hataa square ama rectangle haddaa ka dhigtid ayuu maaragtay ama maaragtay circle iyo waxaas haddaa rabtid inaad ka dhigtid marka wuxuu qaataa rounded rectangular border borderkan wuxuu leeyahay radius marka radius waxaa dhahanaa border radius dot all haddaad circle haddaad ka dhigno 32 for example kaarka dhan haddaa ujeedid wuxuu ka dhigayaa circle ayuu ka dhigayaa oo hodhowda yaro shadow ayuu sameynayaa marka waxaan ka dhiganaa wada circleka ma dhigayno marka maybe waxaan ka dhiganaa 20 okay xoogaa yirisoo maaragtay cornerka meelahan xoogaa yiris ayaan maaragtay yaro cornerka u sameynaynaa circle yirisa sidoo kale kaarka waxaan rabnaa maaragtay dhinacan hore dhinaca kore iyo geesaha inaan xoogaa yiriso space ka siino marka margin ayaan siinaynaa marginka marka outside way edge inside dot symmetric ayaan isticmaalaynaa vertical 10 horizontal 5 horota xoogaa yirisoo space ayaan siinay geesaha numberadan waa you can practice oo horoti kii ku fiican ayaa isticmaalaysa laakiin ani for now intan ayaan okay ku ahay hadda waxaan rabnaa marka hadda space waxaan ka siinay banaanka oo geesaha hadda waxaan rabnaa space inaan ka siino gudaha maaragtay widget-yada gudaha ku jira marka haddaa listyle aadid listyle wuxuu leeyahay maaragtay mid la dhaho content padding oo waxa weysna waa age insect geometry way marka wuxuu siinayaa maaragtay widgetka gudihiisa ayuu padding siinayaa marka waxaa dhahanaa content padding age insect all geesayaasha dhan ayaan 15 ka dhiganaa horoti wada space ayuu wada siinayaa geesaha dhan mid kasta marka haddaan aadno maaragtay okay weeye hadda waa wada dhisnay playerinta laakiin hadda waxaan ku sameynay waxa weeye 4 list weeye marka waxaan rabnaa listigan maaragtay inuu badnaado oo maaragtay playerin badan ayaan rabnaa inaan sameyno marka haddaan aadno player list screen list view haddaad ku dhufatid aan hoos u soconno wuxuu kuu sheegayaa this constructor is appropriate for a list view with small number of children marka list view wuxuu u fiican yahay haddaad haysatid maaragtay small widget list aan ayaro badnayn oo wax yiriis ah ayuu okay waa isticmaali kartaa laakiin hadduu listigaada badnaado let's say for example haddaa dhahdid waxaa rabaa 1 million players inaa helo informationkooda haddaa list view isticmaashid maaragtay slow ayuu ka dhigayaa maaragtay CPU ama processka ama waqtiga ayuu qaadanayaa suu maaragtay million players uu usoo saaro marka Flutter teamka waxay dhaheen maaragtay is not maaragtay appropriate to use list view ha isticmaalin haddii aad maaragtay large maaragtay widget ama list badan haddaad isticmaalaysid ama la shaqaynaysid waxaa fiican inaad isticmaashid another widget oo maaragtay la dhaho listview.builder marka waxaad isticmaali kartaa list view haddii aad maaragtay small number of children haddaad maaragtay rabti inaad isticmaashid ayaad isticmaalaysa laakiin listiga hadduu badan yahay oo list badan haddaa rabti inaad haysatid list view ha isticmaalin marka of course waan bedelaynaa marka waxaan sameynaynaa delete ayaan dhahaynaa codekan dhan mar u baahanin marka waxaan isticmaalaynaa listview.builder marka listview.builder wuxuu sameynayaa screenka maaragtay inta list uu tusin karo bes
ayuu maaragtay soo saarayaa markasta hoos u socotina maaragtay widget kasta oo maaragtay userka uu maaragtay rabo inuu arko ayuu maaragtay soo saaraya marka waxa weeye lazy builder waaye oo maaragtay wuxuu soo saarayaa maaragtay intii bas oo screenka kuu tusin karo marka waxaa loo dhahay is appropriate for a list view with large or infinite number of children because the builder is called only for those children that are actually feasible marka wuxuu ku tusinayaa list viewga oo maaragtay aad arki kartid screen wixii ka badan uusan arki karin build ama uu sii dhisayaa markasta hoos u sii socod ayuu maaragtay ku tusinayaa marka list view builderkan waxyaabo badan ayuu qaataa oo maaragtay hadda sidoo kale directionka wuxuu ku tusinayaa scroll direction intee ayaa rabtaa inaa u riixdid ma vertical miyaa rabtaa inaad maaragtay saas u wadid mise horizontal inaa maaragtay dhinaca maaragtay horizontal aad u waxaysid wuxuu ku tusinayaa haddaa rabtay reverse listiga haddaa maaragtay aad kala celisid oo maaragtay kooda index 0 ayuu ka bilowdaa laakiin kan reverse ayaa ka dhigaysaa marka lista ugu dambeeya ayaan hore keenaysaa sidoo kale wuxuu leeyahay physics scroll direction ayuu leeyahay haddaa rabti maaragtay inaad physics siisid oo markaad scroll iyo waxaad ku sameynaysid saad maaragtay u aragtid ama disable saa u dhahdid maaragtay notches yiris oo inta ku tusinayaa sidoo kale maaragtay waxyaabo badan ayuu leeyahay adeeg ku xiran tahay practice inaad ku samaysid laakiin hadda waxaan u baahan nahay builderkan wuxuu qaataa context iyo integer which is maaragtay index item marka waxaa dhahaynaa ctx for example as a context hodoti index kabacdi return ayaan value dhahaynaa waxaa dhahaynaa return player info right hodoti waxaan u baahan nahay inaan u baasno waayo player infogan wuxuu qaataa player object marka waa inaan dhahnaa players at index marka each player aan indexga ugu jeedno ayaan u baasanaa sidoo kale waa inaan wuxuu kaluu qaataa maaragtay item count inta item oo ku dhex jiro playerkan oo listiga ah marka waxaa dhahaynaa players length marka inta player oo ku dhex jiro meesha listigan oo playerka intuu element maray ayaan ku wadaynaa marka refresh haddaa dhahno programkeena sidii hore ayuu u shaqaynaya wax maana bedelin the only thing aan bedelina waxa weeye waxaan ka dhignay maaragtay a better maaragtay we optimize performance waayo list view builderka wuxuu fiican yahay performance ahaan ayuu kaa caawinayaa hodoti inta screen ku jira bes ayuu soo saarayaa marka for example hadda haddaan data haddaan aadno aan hodoti kuwaan dhan wada copy haddaan dhahno for example player inta ugu dambeysay intaan waaye hodoti haddaan copy kuwad wadno 100 jeer marka haddaan hadda restart haddaan dhahno marka elementiyaasha ayaan ku celcelinaynaa hadda marka saa usii marka scroll dhahayno ayuu build dhahayaa inkastoo elementiga hadda intan ayuu build dhahayaa kabacdi intan ayuu sii build garaynayaa marka saas ayaan u sameynay hadda waxaan rabnaa different screen inaan aadno oo maaragta waxaan rabnaa markaan aadayno maaragta markaan ku dhufano inaan screen kala aadno marka waxaan sameynaynaa new file ayaan sameynaynaa marka waxaan dhahaynaa player details screen kabacdi waxaan ka dhiganaa stateless widget markasta waan ilaawayaan saan dot kabacdi stateless widget waxaan dhahaynaa player details screen okay import ayaan dhahaynaa material dot kabacdi for now waxaan soo saaraynaa textigana waxa weeye
player details. Okay, hodhowtii waxaan ka dhigaynaa center ayaan ka dhigaynaa saan hodhowtii u aragno. Marka hadda waxaan rabnaa player cardkan markaan ku dhufano new screen ama screen kale inaan aadno. Marka waxaan sameynaynaa player listiga haddaan aadno player info. Marka haddii aan player infoga waxaan haysanaa listigan. Marka waxaan rabnaa inaan listiga ku dhufano. Marka nasiib wanaag waxaan haysanaa list styleka wuxuu leeyahay on top wax la dhaho. Marka on topkana waxa weeye function weeye oo maaragtay void ah. Marka haddaan ku dhufano on topkan waa function weeye. Marka waxaan rabnaa listiga card kastaan ku dhufano inaan new maaragtay aadno screen inaan aadno oo new screenkana waxa weeye kan aan sameynay player details. Marka haddaan aadno maaragtay Flutter docs haddaan aadno aan hodhowtii aadno their website hodhowtii documentation haddaan aadno under sample wuxuu leeyahay meel la dhaho codebooks. Marka codebooks haddaa animation u baahan tahay wuxuu ku siinayaa tutorial saad animation u samaysid design haddaa rabtid sida u samaysid design effect forum haddaa u baahan tahay. Kuwaan mar kale ka hadlaynaa iyo maanta muhiimadda waxa weeye maaragta meesha ku qoranta navigation. Marka waxaan rabnaa new screen inaan aadno. Marka meesha navigationka haddaan aadno meeshaan create two routes. Marka routes waa screen weeye. Marka hadda waan sameynay anaga route ayaan sameynay screen hal screen oo details ah. Marka waxaan rabnaa maaragtay home pagekan inaan aadno. Kan waa screen weeye. Screenka labaadna details weeye. Marka waan sameynay kan. Marka hadda waxaan rabnaa bis markaan ku dhufano cardkan markaan ku dhufano waxaan rabnaa inaan aadno new screen. Marka meeshan ku qoran tahay navigate to second route using push. Marka waxaan isticmaalaynaa navigator.push. Marka push wuxuu sameynayaa maaragtay screenkan hadda haysano ayuu mid kale tul saaraya push. Marka maaragtay screen maaragtay the new screen will be on top of home page. Marka push micnaheeda waxa weeye wuu istul saaraya hodhowtii each screen wuu istul saarayaan. Marka waxaan isticmaalaynaa navigator.push. waxaan tul saaray push wuxuu qaadanayaa markaas context. Marka contextigana waxa weeye maaragtay current build widget maaragtay widgetka ahna hadda ku dhex jirno contextigeena. Kabacdi wuxuu qaadanayaa material page router. Material page routerkan wuxuu qaataa builder. Right, builderkan wuxuu leeyahay context. Kabacdi second page ayaan aadaynaa. Marka hadda aan sameyno kabacdi meesha aada player info. Marka waxaan dhahaynaa contextiga waxa waa build widgetkan isticmaalayna weeye. Marka waxaan dhahaynaa navigator.off contexti wuxuu qaadanayaa contextiga waxa waaye this will build widgetkan contextigeeda aan hadda ku jirno in the widget tree ayaan qaadanaynaa. Kabacdi waxaan dhahaynaa dot push. Kabacdi waxaan tul saaraynaa new screen ama screen cusub ayaan tul saaraynaa. Screenkan ayaan mid kale tul saaraynaa. Push micnaheeda saas weeye. Marka wuxuu dhahayaa push the given route onto the navigator. Marka new screenka hadda cusub ayaan tul saaraynaa. Marka push wuxuu qaataa material page. So material page router ayuu qaataa. Page routerkana wuxuu qaataa build context. Right? Marka build contextigana waxa waaye ctx. Kabacdi waxaan sameynaynaa we return a detail player detail screen.
marka waxaan aadaynaa player detail screen ayaan aadaynaa markaan ku dhufano each cardka markaan ku dhufano waxaan aadaynaa waxaan dhahaynaa navigator.off contactsigaan hadda ku dhex jirno waxa weeye build widgetkan weeye kanaan ku dhex jirno ayaan waxaan dhahaynaa push waxaan dhahaynaa screenkan waxaad dul saartaa screen kale screenka pushkan wuxuu qaataa material page router ayuu qaataa material page routerkana waxa weeye maaragtay haddaa aragtay waxa weeye material page router whose content are defined by builder marka builderkana wuxuu qaataa context kabacdi waxaan dhahnaa new screen ayaan aadaynaa markaan haddaan refresh dhahno ama hot restart haddaan dhahno horoti hadda restart waan dhahnay haddaan ku dhufano wuxuu aadaynaa new screen ayaan aadaynaa new screenkana waxaan ka ilownay scaffold inaan siino marka waxaan dhahnaa wrap with the widget scaffold kabacdi waxaan siinaynaa upper waxaan dhahaynaa upper titleka waxaan dhahaynaa text kabacdi waxaan dhahaynaa player details ayaan dhahaynaa also scaffold wuxuu qaataa body kabacdi haddaan save dhahno new screen ayaan aadaynaa marka hot restart ayaan dhahaynaa okay marka kaar kasta markaan ku dhufano wuxuuna keenayaa player details kabacdi waan kasoo laabanayna marka saas ayuu maaragtay programka qornay saas ayuu sheegayaa marka markaan navigate.off contacts push markaan dhahno new screen ayaan dul saaraynaa previous screen oo maaragtay screenkan marka of course anaga waxaan rabnaa inaan maaragtay screenkan markaan aadno maaragtay inaan u baasno information inaan u baasnaa rabnaa saan hodhowtii aan u helno maaragtay player kasta maaragtay player kasta informationkiisa saan u helno ayaan rabnaa inaan ugu baasno marka hadda screenkan wax ma qaadanayo marka waxaan rabnaa inaan daaro u baasno to new screen marka waxaan sameynaynaa player details ayaan aadaynaa player details markaan aadno uma baahnin key kabacdi kana uma baahnin kabacdi waxaan rabnaa inaan u baasno waayo haddaan aadno maaragtay player details player kasta id ayuu leeyahay oo player kasta maaragtay unique id ayuu leeyahay for now waxaan dhahnay 1 2 3 ayaan dhahnay marka waxaan aadaynaa player details waxaan rabnaa id-ga playerka inaan aqbalno saan hodhowtii information kale usoo maaragtay informationka playerka saksihaan u ah saan usoo qaadano u helno marka waxaan dhahnaa final string id marka id-gan waxaan ugu baasanaa player detailka anagoo isticmaalayna constructor marka id-ga ayaan u baasanaa waxaan dhahnaa this.id okay marka id-ga ayaan u baasnay kabacdi player information marka maaragtay player info widget waxaan rabnaa inaan u baasno marka id-ga intan ayaan ka helaynaa waayo maaragtay haddaad xasuusatid maaragtay listiga waxaan u baasanaa player kasta informationkiisa ayaan u baasanaa haddaa aragtid playerkana wuxuu leeyahay ids name right marka waxaan sameynaynaa meesha maaragtay player info widget marka waxaan u baasanaa player .id ayaan u baasanaa marka hadda waxaan haysanaa player meel kasta markaan ku dhufano waxaan helaynaa player kasta idgiis marka haddaan aadno screenka haddaan aadno aan dhahno player details screen right marka waxaan dhahaynaa player id is kabacdi waxaan isticmaalaynaa id marka waxaan print soo dhahaynaa player kasta idgiisa aan ku dhufano marka waxaan dhahaynaa hot restart okay marka hadda hot restart ayaan dhahnay marka haddaan ku dhufano playerkan idgiisa waan helaynaa player id marka Moxamed Saalax haddaan aadno daira haddaan aadno waxaan helaynaa Moxamed Saalax idgiisa inuu yahay 1 haddaan ku dhufano Ronaldo waxaan helaynaa Ronaldo idgiisa inuu yahay 2 marka saas ayaan waxaan ugu baasaynaa information anagoo isticmaalayna constructor
marka waxaa jira si kale ayaa jirta aan ku baasi karno information anagoon isticmaalayn constructor kan waxaan ugu baasinayd constructorka waayo waxaan isticmaalaynaa navigator.of contacts pushed kabacdi waxaan isticmaalaynaa material page route hodhoti waa inaan u baasinaa data anagoo isticmaalaynaa constructorka waa inaan ugu baasinaa data laakiin haddaanan rabin inaanan constructorka waxna aan ugu baasinaan bes haddaan saan rabno inaan ugu wacno for example saan inaan bes ugu wacno haddaan rabno oo hodhoti maaragtay aan kanna maaragtay comment iska seerno internet ka waxeeno saas haddaan rabno inaan ugu wacno maaragtay waa inaan isticmaalnaa maaragtay waxay noqonaysaa inaan isticmaalno page maaragtay named page route marka waan ku laabanaynaa websiteka ayaan ku laabanaynaa waayo kan hadda wuxuuna tusinaysaa aan u isticmaalno page route laakiin anaga waxaan rabnaa inaan maaragtay name route inaan isticmaalno marka waan laabanaynaa kabacdi waxaan aadaynaa meesha ku qoran tahay navigate with name routes okay marka navigate with name routes waxaan sameynaynaa screen markaas sameyno kabacdi waxaan define the routes marka screenka ayaan u sheegaynaa Flutter waxaan dhahaynaa screen kasta waa kaas magaciisa dhinacaas ayaan maaragtay daaradiisa kugu baasaynaa kabacdi markaan rabno inaan new screen ama screen cusub inaan aadno haddaan rabno waa inaan isticmaalnaa navigator.pushed name inaan isticmaalno weeye kabacdi hodhowti haddaan rabno daara inaan kasoo qaadanana pop ayaan isticmaalaynaa marka already first step waan sameynaa anaka waan haysanaa screen waan haysanaa marka second step waxa weeye inaan define dhahno routes marka defineka waxaan dhahaynaa material app ayaan aadaynaa kabacdi waxaan sameynaynaa initial route ayaan sameynaynaa oo initial route screenka koowaad kabacdi screenka labaadna waan sameynaynaa for example waxaan dhahaynaa routekan wuxuu qaataa waxa weeye map keys weeye marka keyska waa screen valuegiina waxa weeye widget weeye marka saas ayaan sameynaynaa haddaan ku laabano maaragtay dort kabacdi waxaan aadaynaa main dort ayaan aadaynaa kabacdi waxaan sameynaynaa before aan saan sameyno marka hore waa inaan maaragtay define waa inaan dhaxnaa routeka ama screenka aan rabno inaan aadno magacyadooda waa inaan sameynaa marka waxaan dhahaynaa static constant route namekaas marka screenkan waa screenka ugu horeeya weeye marka waxaan dhahaynaa maaragtay dash slash waxaan dhahaynaa kan waa screenka ugu horeeya waayo Flutter waa principle weeye ama maaragtay syntax aan raacno kabacdi waxaan aadaynaa screenka labaad waxa weeye player details sidoo kale static constant route name kabacdi sidoo kale waxaan isticmaalaynaa magaca screenka ayaan isticmaalaynaa also la soco laba maaragtay oo isku magaca ma samayn kartid waayo haddaan screenkan aadno haddana kanna magaciisa waa kaas screenkan labaadna magaciisa waxa weeye kan maaragta saan haddaan sameyno khalad ayaa dhacaya waayo Flutter uu weeraraya wuxuu dhahay waxaa siisa laba screen oo isku magaca marka markasta waxaad isticmaalaysaa new screen haddaad sameynaysa waxaad isticmaalaysaa magaca screenka ayaad waxaad dhahaysaa slash kabacdi magaca screenka ayaad sameynaysaa okay marka saas waa sameynay step 2 hadda waxaan rabnaa inaan maaragtay aan new screenkan aadno marka waxaan sameynaynaa markii hore san ayaan sameynaynay marka comment ayaan sameynaynaa uma baahnin before we do that waa inaan aadnaa material widget material appka waa main dort meeshuu ka bilaabanayo kabacdi waa inaan register dhahnaa maaragtay waa inaan sameynaa maaragtay magacyada screen kastuu leeyahay marka waxaan dhahaynaa initial route ayaan marka hore isticmaalaynaa initial routekana waa maaragtay screenka koowaad weeye oo maaragtay default screen oo markasta aan tusinayno userka marka waxaan dhahaynaa my home page route
marka screenka koowaad initial route-ka meesha uu ka bilaawanayo screen kasta waxa weeye my homepage route kabacdi waxaan isticmaalaynaa routes saa ka hadalnay routes wuxuu qaataa waxa weeye haddaan maaragtay with the help of routes haddaan ku dhufano wuu noo sheegaya routes wuxuu qaataa map weeye mapkana waxa weeye string iyo widget-kana waxa waa build function weeye marka waxaa dhahaynaa routes kabacdi initial route-ka ugu koowaad waxa weeye my home page route kabacdi waxaan isticmaalaynaa build context which is ctx kabacdi waxaan dhahaynaa waxa soo return waxaan keentaa my home page sidoo kale waxaan sameynay screenka labaadaan aadayna waxa weeye player details right dot route name waa player details route name sidoo kale waxaan dhahaynaa ctx kabacdi waa contextiga aan ku dhex jirno weeye kabacdi waxaan dhahaynaa waxaad aadaa player details screen okay marka register waan dhahnay oo waan diiwaangelinay screenka aan rabnay inaan aadno waan sameynay hadda waxaan rabnaa inaan u sheegno maaragtay Flutter meeshaan rabna inaan aadno screenkaan rabna inaan u sheegno marka waxaan dhahaynaa markastaan ku dhufano playerka cardkan player kastaan ku dhufano waa inaan screenka aadnaa marka waxaan dhahaynaa navigator dot off context right sidoo kale waxaan hadda waxaan dhahnay push ayaan dhahnay laakiin hadda waxaan isticmaalaynaa pushed name ayaan dhahaynaa pushed name wuxuuna siinayaa route-ka ama screenka aan rabna inaan aadno marka screenka aan rabna inaan aadno waxa weeye player details route okay kabacdi waxaan dhahaynaa semicolon hadda hot restart ayaan dhahaynaa okay hot restart waan dhahnay kabacdi hadda screen kasta waan aadaynaa laakiin dhibka waxa weeye id-ga ama maaragtay userka informationkiisa ma helayno marka hadda waxaan rabnaa screen kasta markaan aadayno waxaan rabnaa inaan u baasno id-ga user playerka id-giisa inaan ugu baasno saan hodhowti informationkooda oo ayaga u khaasisan saan uga soo qaadano aan u isticmaalno marka waxaan sameynaynaa haddaad aragtid let me minimize the screen here marka haddaad aragtid hadda waxaan u baasnay push name ayaan dhahnay laakiin push name another argument ayuu qaataa argumentigana haddaan aan aragno waxa weeye argumentsina waxa waa object marka argumentigan waa waxaan rabnay inaan u baasno screenkaan rabnay inaan aadno marka argumentiga waxa weeye object marka object wax kasta noqon kartaa wuxuu noqon karaa maaragtay list ayuu noqon karaa for example id list ayuu noqon karaa wuxuu noqon karaa maaragtay for example wuxuu noqon karaa map for example id kabacdi waxaan dhahaynaa maaragtay map object ayaan u dhiibaynaa waxaan dhahaynaa id kabacdi waxaan dhahaynaa id right waxaan u baasi karnaa integer for example waxaan dhihi karnaa integer waxaan dhihi karnaa double right marka argumentigan micneheega waxa weeye wuxuu qaadanayaa any object wax kastaa rabtay ayaad ugu baasaysaa screenka aad rabtay laakiin anaka waxaan rabnaa inaan u baasno bes id-ga player marka waxaan dhahaynaa player dot id marka player id-giisa lamir formatad kabacdi waxaa u baasanaa playerka id-giisa marka player kastaan ku dhufano id-giisa ayaan rabnaa inaan helno kabacdi player details markaan aadno waxaan rabnaa id-gaas inaan helno marka sidee ku helaynaa id-gaas marka su-aasha saas wey marka haddii aan ogaano id-gaan usoo baasnay haddaan rabno inaan ogaano Flutter wuxuuna siinayaa saan ku heli lahayn wax kastaan ugu baasno argumentiga objectiga aan uga soo baasnay markaan new screen markaan aadno saan u heli lahayn wax kasta usoo baasno ayuu maaragtay naga caawinayaa marka waxaan dhahaynaa final player id equals model route ayaan isticmaalaynaa model route cows
wuxuuna siinayaa off context. Again off contextiga waxa weeye contextiga aan hadda isticmaalayno oo maaragta aan ku dhex jirno. Kabacdi waxaan dhahaynaa waxyaabo badan ayuuna siinaya sida maaragta animation, barrier color, dismissal. Laakiin anaka waxaan u baahannahay settingka inaan aadno. Settingkaasna waxa weeye page route setting weeye. Page route setting oo wax kasta aan ugu baasno argumentiga ama page ama new screen markaan aadayno wax kasta ugu baasno ayaan ka isticmaalaynaa settingkaas. Settingkaas wuxuuna siinayaa wax la dhaho argument. Marka argumentigana haddaad xasuusatid waxay ahayd object. Marka argumentigan markaan helno haddaad xasuusatid maaragta waxaan dhahnay argumentigan wuxuu noqon karaa any object, wax kastuu noqon karaa. Hadda waxaan uga soo baasnay anaka waxa weeye ID. ID-gana waxa waaye string. Marka waxaan rabnaa inaan ku bedelno argumentigan strings inaan objectiga inuu string yahay. Marka waxaan dhahaynaa as string. Kabacdi objectiga markaan helno print waan soo print garaynaynaa inuu shaqeynayo in kale. Marka waxaan dhahaynaa player ID. Okay, hot restart ayaan dhahaynaa. Okay, hadda marka playerkan haddaan ku dhufano ID-giisa waa helaynaa oo one weeye. Sidoo kale Ronaldo haddaan ku dhufano ID-giisana one weeye. Marka saas ayaan u isticmaali karnaa object oo ama aan maaragta ugu baasi karnaa information haddaan rabna screen cusub inaan aadno. Okay, marka saas ayaan sameynay. Badanaa kanna waa dul marnay oo okay weeye. Sidoo kale last one waxa weeye maaragta passive argument waa kaan isticmaalnay oo aan kuu sheegayay inaad maaragta isticmaali kartid screen argument camal markaa wax u baasisid. Marka haddaa rabti more information waxaad practice waxaan ku samayn kartaa codekan lagu siiyey saad maaragtay u diiwaangelin lahayd screen kasta. Marka kan already waan sameynaa anaka oo maaragtay argumentiga waan u baasnay screenka saan maaragta ID kasta uga soo qaadano. Marka hadda waxaan rabnaa next inaan sameyno maaragtay player kasta waxaan rabnaa informationkiisa inaan soo helno sida maaragtay for example maaragtay playerka wadankuu u dhashay, positionkuu ka ciyaaro, intuu salary intuu maaragtay sanadkii inta lacaguu sanadkii sameeyo ayaan rabnaa inaan sameyno. Saasna waxaan u isticmaalaynaa ID-ga playerka ID-giisa informationka markaan helno saas ayaan wax uga soo saaraynaa. Marka kaas videoga soo socda ayaan qaybta labaad ayaan maaragtay sameynaynaa oo qaybta labaadna waxaan kasii hadlaynaa maaragtay si aan maaragtay screenkan markaan aadno saan information kale ugu soo baas lahayn kan oo maaragtay waayo hadda waxaan sameynay only one way information, one way passing information oo maaragtay hadda waxaan sameynaynaa only maaragtay information bas ayaan ugu baasaynaa screenka oo maaragtay player details. Laakiin waxaan rabnaa player details screenkan ayagana inaan information kasoo helno markaan kasoo laabano. Kaasna waxaan ka hadlaynaa videoga soo socdo. Waxaan rajeynayaa inaad maaragtay today video inaad fahantay oo maaragtay practice samee insha Allah wax kastana way ku fududaanayaan. Okay, see you next video.